كلكم marka qodobkan ku soo dhawaado marka ugu horeysa waxa weeye inaga halka waxa la ugu yimid talaale inuu weydiiyay marka taladii hadana inay iyaga dib ugu celina ma aha nin walba waxa ay la tahay waa inuu yiraahdaa war citizenship maxaynu ka yeelan dib aynu u dhigano qoraalka hadeer soo baxaya qoraalka markuu soo baxo 5 bilood kadib insha Allah ta'ala August first dawlad baa dhalanaysa dastuurkan hadda aynu ansixinayna wuxuu noqonayaa bilow markaas marka insha Allah ta'ala dawlad baa dhalatay adigu u eg mid tii aynu rabnay u eg oo bilow markaa dhalatay markaas bahalkan magaranaysa dastuurkan uu effective noqonaya marka maalinta marka uu effective noqdo oo dawlad xoogaa iska tayada ay dhalato citizenship maxaynu ka dhignaa marka anigu waxaan qabaa ama dawlad tayada ha dhalato ama yaya dhalanin ama mid ku meel gaar ah ama yana ka bixin qodobka citizenku waa muhiim waxaan aniga fikrad ahaanteeda ay ila tahay in xagga isirka loo eego oo la yiraahdo qofkan aabihii iyo hooyadii waa inay ku dhashaan simple clear ah la yiraahdo qofku waa in aabihii iyo hooyadii ku dhashaan dalka Soomaaliya waa inay ku dhashaan haddii lagu daro xitaa awowgii anigu taariikhdeeda waa okay baan qabaa in la yiraahdo sababta oo ah anigu gabadh eedaday dhashay oo Faransiis ah oo af Soomaaliga idinka badisa ayaan iska raacnay France xamar baan soo tagnay hay'adaha u shaqeysa haddii hadda ka soo baxay inay qof cad tahay wad garanaysaa laakiin af Soomaaligeeda ma kala soo karaysa waa Faransiis laakiin hooyadeed waa Soomaali maxay leedahay yay matasha yay ma garanaysaa marka cadow fara badan baa halka ku dhalatay waynu nin halkan aan dhashay gabdhaheennii dad kale guursadeen marka anigu sababta aan saa u leeyahay waxa weeye Soomaaliya 10 milyan baynu nahay dhaqan iyo diin iyo isir baynu leedahay waxay ila tahay in aynu ku arkaysano generationada soo socda sida Dubai oo kale 5 milyan dad oo ka kooban yahay 20 milyan oo ka shaqeeyaan qaabkaas oo kale ayaan anigu jeclahay in dhaqankeena iyo isirkeena iyo diinteena aynu arkaysano ta kale sida waxa weeye waxa jira dad ku dhashay gobolada Soomaaliyeed ee hareeraheena ah ku dhashay iyaga laftooda waxa qabaa inay yihiin Soomaalinimadeena ay qaataan in allaale intii gobolada inagu dhegan oo dhan ay yihiin Soomaali aslan as qofka uu aabihii iyo hooyadii la cadeeyo isla markaana 10 sano ee soo socda waxaan ku talin lahaa in la isticmaalo qaabkii qabaa'ilka ah oo la yiraahdo chief caaqilkaaga ka soo qaado warqad ka soo qaado la yiraahdo oo qofku warqad ka soo qaato chief caaqilkiisa saa lagu cadeeyo qofkan in aabihii iyo isirkiisa ay ka yimaadeen haddii kala diinteena dhaqankeena uu bedelmi doonaan mudooyinka soo socda marka inta ayaan talaa ku tusanayaa waa santii mid kale meesha marka la soo istaagana hadda ay loo dadka aynu ku ekaysiino wax badan baa inoo dhiman citizenship ma istaaga laba Soomaali oo ku dhashay dalkii laakiin arrintooda halka ku dhalatay arrintaas Soomaali citizens ma noqon karaan anigu waxaan soo gaaray dawladii maalinta xorriyadda qaadanay lahad waajib abaa 30 sano qaar ku shaqeeyay ilaa burburkii dawladii ugu horeysay oo dhalatay 9 sano jirtay Soomaalida ka soo qaad ku nool gobolada Ethiopia dhulkaan markay Ethiopia iyo NFD iyo Djibouti xafiis la sameeyo office for Somalia Affairs ufito per afari Somalia oo ka baxsan maamulka kale ee dawladda dadkaas waxaa la siin jiray qofkan buugga oo loo aqoonsado oo la yiraahdo dadkaan waa dad morales qaxootiga kacaan markuu dhashay
أيام اللي حبيت أصدق كعان كله يري صومالي ما كسبته ما كسبته قف هذه الله يجوا وارد كسر صومالي وصومالي حق 6 سنين كل شيء ده كوديسة أيوليه أنا بساسا تاسو عمل كده كلام كان ويل كيف يصير تلك أو هدي له ملا على غيره حاول يروح يكون صومالي هل بس يرجع يدين شيء يعني عشان تكون القرص هاي كل جيت هاي يعني بكتب صارين يعني كذا كويس جرمنا وكسر دولة الجرمن كا وأسست الصومالية عاونها هاي مركز وكل ولا هرجيسة أي حاسي درب بحكش المو يرى أنت أصله ومدور معرض أو أنت برد بقتيجي اللي يلقى تسعة البحرين إسلام تبى صواب على تك تهرجيسة لا تشرب ليش بلود يقول لك تفتح مين يبغى كوكب عيون ولا عفوا أبو هراي وقبر كويس يقولي وقبر قبر دي بيكرسدين شان سنة قبر دي مركي قاعدين بقى عدي اللي كتر الصومالي ما كله قبر دي بيدعي عليه وطعم عليه قبر وقبر هو الصومالي هو ده كتير محكوم بالمستلزم زبدة واللوتي إلى هيك بيقولها الدرس شرعي إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط مصر عليه السلام الشرعي adoption اللي يراهن ما تجرو سومالي ما تجرو هذا المجرو مركب وواحد مباهنا سومالي حتى معي citizenship كا إيران كسر الروح أي قابل سد adoption ما هذا يعني adopterين يتعرض لنا إحنا بس المرة هاي المرة نقول عن كله عن سومالي أحفظه شرعية كل وارد كل عن المهاز وارد كل من تاسمع بس الحالة دي لو عوي صوماليا معها جزيرة العراق الدون كان كمتنا هاي شروط international هجرة صوماليا ما نتقول تقاعد شروط راس وحكاية صحيح ضي حتى لو ولي هم كنا قربنا من دون صومال وعوي حقوق الإنسان باكر واحد هذا كان هذا ما حقوقنا حوالي من التكون بتوع حسيس ممكن بتوع مرة يكون هذا بيقولوا ده هو it's not true ده هو هذا إساسا Mexicans كان أو أنا كسومالي أنا كشقة بدن أنت بدن رعاق بدن أنا تجاوب بدن رافت بدن واحد يوصل سبعين سنة مرة يكون سيد يوصل بعد كمان بيوصل واحد برا تزر أنت صامرة وبلا يوصل إيه هذا واحد سبعين سنة كل كويس كيسا بكسر كلام بكان أنا لا وما هكذا كنت سجل ولا سجل ما يغنى Somali terkau bicara 20 million all together at 10 people or so the point people or so the other region people or so 20 million not more tak kena kerana ya kena orang lah di bukan negara mereka mereka hamillah Somalia angka firsan opposition sa angkatan wah itu rasa hai ini belum nol akhirnya lakin intas bakal sih orang masih qodobkan wax badan aan ka doonay laba qofood aan ugu dambeysay gacanta taagtay aan u dhiibayaa kadibna qodobka kale aan ku geynaa bilaayla
wax dembiyana gelin markaa ka bacdina la siiyo dadka aan muslimka ahayna 5 sannadood joogaan haddayna dembi gelin markaa la siiyo markaas dhibaatooyin maahan sidee jidka laga helayo bannaanka dowladda gacaankuna waxay loo samaysay dhibaato gooni oo ubadka soo kordhiya kan aan soomaalinimada markaynu soo noqono anigu waxaan qabaa inaan la odhan aabihii iyo hooyadii iyo aabihiiba hadday dad kala guursadaan ilmihii uu soomaali noqdo sababtu waxay tahay haddii aabihii uu naa kala guursado ilmihiisii la yidhaahdo adiga soomaaliya ilmahagu soomaali ma aha waa dhibaato hooyadii hadday cid kala guursato oo la yidhaahdo adiga soomaaliya ilmahagu soomaaliya dhibaato weeye waa laga yaabaa dadka kala badhobar laga helo wax aabihii hooyadii siniinka soo socda inay soomaali yihiin mid kenya guursada mid etoobiya guursada mid jabuuti guursada marka anu waxaan odhan lahaa inaan lagu koobin aabbaha iyo hooyada mid walba la yidhaahdo haddii waalidkii uu yahay soomaali sababtu waxay tahay hooyadii lama tukoori karo lama odhan karo ninkunbaa soomaali lagu noqon karaa hooyada laguma noqon karo taas waa taas waxaan isa qabaa dibaa la ysaga yimaado orasaa la ysaga yimaadee midaan laga farsanayn oo ah war soomaali oo dhan wakiil kama nihido waa ognahay soomaalidina shan bay u qaybsanayn shantii inay kasii badatana waa laga yaaba oo 10 iyo meelaha noqoto beri dhow intaa gudheeda aan laga tegin yaa soomaali noqon kara ma soomaali wasiirka maanta jabuuti ka ahay markaan anigu tago jabuuti wax la leeyahay fiisa ma wadata beri hadduu isaga shaqa ka tagana baarlaman ku soo gelaya wasiir waxaan ka noqonaya markaa meesha tanu inay noqon guri furan oo sida qolyahan shabaab la socdaa ninkii waddankiisa laga soo riyaa shabaab ismaray waddankii ku noolaanayo inayna meeshii noqonaya la yidhaahdo isir loo noqoto oo dadka jamhuuriyadda soomaalida ka qaybgelaya aynu u guudno oo aan la odhan haddaad etoobiya ku dhalatay haddaad kenya ku dhalatay iyo haddaad jabuuti ku dhalatayba soomaali baa tahay oo sidaa mid walba fiisa laynoo ka doonayo iyagana fiisa looga doono haddii kalena aynu dee commonwealth wada noqono laakiin inaynu fiktabri ku noqono iyagana wax waliba furan yihiin wax walba inay ka xidhan yihiin ma qabo inay taas shaqaynayso intaasaan kusoo geliyaa maxansati السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي واسماعيل دعك اسمان. كل يوم احنا نجد سوء استاغي انا بقول عنها المواد الصومالية وحنا نلاقي المواد الصومالية وحنا نلاقي دستور بقرين سنة كيكون سيغان بقرين هذاك ما نرى بينان كانوا يعني انت جديد الشيكاس صابتوا ما ورا دستور وحنا نلاقي دستور ما كون حدا بينان ولا نلاقي صومالية ولتيجي qofkii raalli ka oo dastuurka ministaag waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo meeshaan u imaanin inaan dastuurkan election ando maxaa lahaa inaad ogolaataan inaad diidaan meeshaan ra'yi baa idinka aruurinaynaa walaalkay ismaaciil raalli ahaado dastuurkaan ra'yigaaga waa ku ogolay ogsiina ra'yigaaga sidiisu dhiibo dastuurkii 60kii talyaaniga qoray ma garatay kana waxaa waaye haddaa wax ka sheegaysa ka sheeg laakiin fadlan haddii hadda referendum igu samaysa yaa ogol yaa diida ma balgaarin salaada waqtigeeda la dugtaa cali waa baasan tahay waxaan u leenahay waxaan joognaa society of democracy uu ka jiro afkeenaas qabta xoogaa waa laga fiican yahay
kuu sheegay